lagu leeyahay no waxaa lagu leeyahay mataqaanaa diinta islaamka waaba ka baxaa lagu leeyahay diintii dhan aanba ka baxaa lagu leeyahay ka sheekayay dhibaatada anaga haysato Soomaaliya na lagu soo abuse gareyn jiray ayaa lagu leeyahay brother the reason ka diinta islaamka aan uga baxnay anaga mataqaanaa lagu leeyahay fiiri adaa rabtid inaa wax cuntid ama aad rabtid inaa wax suusatid maaha community-ga adiga aad ka dhalatay in adiga ku mashquulshid maahan dadka adiga aad ka farcantay inaad business ka dhigatid hilibkeena inaad ka dhigatid maaha sidii waslad camal wax iga bara aniga oh my god aniga diinta islaamka markaa ka baxay I used to be scared I used to feel very very scared you know Johnson I'm like listen to me my community oh my god I'm scared I'm scared you scared what you scared what you lying oh my god Johnson you know Johnson what happened they used to beat me they used to beat me every single day oh my god I can't remember you know what they call in Washamsi they used to call you don't know Washamsi mid kale iga baro oh my god when I come first time in this country I used to scare the first day I come to the church I feel safe war waxaan community-ga ku akhrineysaan iyo beenta aad daldaleysaan wax walba hadii shaqo ay ku noqdaan noloshaad ka dhacaysaan mideeda kalena tan ugu darano community-ga Soomaaliyeed embarrassing lagu hayaa waxay ka mid tahay markuu rabo inuu qof dhalinyaro ah uu noqdo laga roone wuxuu ku leeyahay waa qaabka ay u ooyaan reaction-ka ay bixiyaan baa waxa ka dhigaya dad innocent ah oh my god you see when I was in Somalia they used to rape me I remember in time my family I went to the United Nations to help me you know I feel safe when I'm staying in this country in Somalia Somali government are not helping me oray dhigayso dhaqanka adaa ka tagtaan diinta adaa ka baxdaan community-ga adaa ka carartaan sharafta ku dhimo waligaa dadkaaga iyo dalkaaga iyo dawladdaada iyo diintaada waligaa ha iibsan waxna maadan cunine maxaa beenta isku sheegaysaan waa jeeb marantihiine tacbaanaabatihiine you don't even have a single dollar this is the problem يعني فيري the way they reacted is the way I'm reacting right now qaabkay dadka oo la dhaqmaan yani you see Johnson I called him last night 2 times Johnson he didn't answer my phone what up you see every time I call Mike and me we used to love each other
hooyaa waxay soo dirsatay wiil Soomaaliyeed waxay u soo dirsatay Mareykan waxay sugaysaa in uu u shaqeeyo daaqadaaba laga boodabano peace hooyaa ka sheekeynaysaa community-gi dhanbu waaba la inkirabo fiiri hooyada waxay ku soo dirsatay iyo aabaha wuxuu ku soo dirsaday xerada qaxootiga ma ahan ina inta dandan ku noqotay dandan this is the way you reacted marka isma ogid you see oh my god every time I go to school when I go to school I feel very emotional very safe entire my people they don't understand me what I need oh my god you know the problem I don't like to go back to Somalia the reason I don't want to go back to Somalia they're gonna kill me they will eat me alive they will eat me alive do you know how bad it is getting someone alive in Lahore that's how bad it is in my community waxaaba lagu leeyahaaba Soomaaliya haddaan ku noqdo nolol lagu cunay lagu leeyahay waxaas hal rabaa in oo annaga horta adduunku muxuu naga aaminsan yahay way su'aal meesha ku jirto wuxuu naga aaminsan yahay waa wax dadka annaga aan ka dhalanay adduunka ee u sheegeen waxa annaga aan nahay this is how it is marka from the beginning to end la qabso you know the problem before problemka uu sadcin you know dhibaatada aniga lagu suubiyay Soomaaliya aniga si xor ah lagu mari karo meeshii aan ku dhashay waa jeclahay laakiin aniga what I believe inta banaanka u baxo jirdiinkiis kama fariisan karo because of they don't accept me aniga waxaan aaminsanahay dhaqankayga they don't like it way dilayaan way cunayaan way qalanayaan sidii wasladii leefayaan waxaas la soo shaqo tagtay tan ugu sii daran aan la isku sheegina waxa waaye hadaba daawo barnaamijkana waa stress free wuxuu yeelan doonaa barnaamijyo aad u badan share iyo like na ilaahay baan ka sugeynaa hadaa adiga nagu caawinaysidna soo badi you know markii igu darneed aniga walaaladii muslimiinta Soomaalida waxaan rabay inaan diinta aniga aaminsanahay inaan ka dhaadhaciyo ana qofoo dhigistaa waay opportunity-ga marka wadankan aniga siiyey wadamada cadaanka opportunity-ga ku haysto inaan qofka cadaanka inta u tago inaan ku dhihi karo diinta aan aaminsanahay ee ila dhegeyso laakiin qofka Soomaaliga aniga igama dhegeysanayo diinta bali fikirsanay asaga tiisa waa ka dhegeysta qofka Soomaaliga ah diinta cirkay ka soo degtay 7 samaawaat intibaaqan abo diinta waa diin muslim dhan ka dhaxaysa qof Soomaali gaar uma laha adigu taada reasonka lagu diiday waxa waaye dhaqan xumadaada qofkii cararana anaga waxa leenahay way suluud waxa aniga iga yaabiyay xaafadaha aniga aan deganahay Soomaali ma jecel aniga inay درس إلى زون قطو ريزك بعقيرة بتغلاني happy كوبي عليا happy كوبي وكبغ بغايا ناس واحد حافظة زمالنا تعالى وتعلن
إن أنا وذكر هذا ويا ليش أنا قلت كرجع get out of here. It's true, this nation is the land of opportunity and it's free. لكن لغuma dhihin dadka adiga ka dhalatay national TV inta u soo istaagtid waxa rabta ka dhacday dadka xumaatadooda ka sheekay xumaato wati ilaahay yiraahday adaad hal xumaato qarisid kun ba ilaahay ku qaranaya qaladaad yiriso community-ga ku aragtay ma ahan in national TV ala soo fariisatid adaa wax cunaysidna si qumaati u cun in dadkiisa wax ku cunay ha noqon dad baad naga jaa'ifaynaysaa oo qaxootiyaasha noogu jiro oo hadeertan ilaa hadeertan adduunka loo baryoya adigana adduunka waxa rabtaa toosh ina ku furtid fiiri gurigaaga faynuusa ka daarna malena tanna waxa u daaran nal caadi ah barada tanna waxay cunaanay la yihiin tooshka umada ay ku ifinaysidna it's not good tan ugu sii darana waxa waaye barnaamijka qayb ka dhigaya tan ugu sii darana waxa waaye Somalia saydhaan fiirade Somalia marka aad joogay wixii igu tarnaa mataqaanaade laamiga anigoo saas dhahayo ma mari karo anigoo saas dhahayo ma mari karo anoo calankaygii wato hore oo saas dhahayo ma mari karo way dilayaan community-ga ana ka dhashay توكا وغناعمة ooyinta bilaashka ah iyo iska dhigdhiga la iska dhigayo umada qalaad ati aad wax ku helaysid adi adiga wax ku helaysid kullu millions dollar kumaadan heline adaad adigu wax ku helaysid nin banki soo jabsaday amala u haloosa adaa wax ku helaysid anaga maxaan ku dhihi lahayn mataqana jaa'ifinta leenaga waxa rabtaqas Soomaaliya inta u goosid waxa tiraahdaa Suudaan liigu soo abuse gareeyay Liibiya liigu soo meesha runta la isku abuse gareeyay sheego Egypt liigu abuse gareeyay wala ijir dilayday laakiin Soomaaliya oh my god do you know how big it is just to call a motherland wa mel worst you know how bad it is you don't know that I will teach you this the problem ka aniga community ga aku haysto I have no right inside of my community I don't have no right the world give me freedom you guys don't give me afarta xabaha naga dhameeni sheemayo wuxuu ku dhahoyaaba xorriyada aniga aan ku haysto qurbaha Mareykan maaya qurbaha dhanba joogtaba freedom ka aan ku haysto Soomaaliya kuma haysto habarteeda laga yiri abo guribaada deganeen gawaari baada lahayn shakhsiyadaada lahayn diin baada lahayn dhaqan baada lahayn muslinaada ahayn Soomaali maxamadaan ahayn adigu anaga nama matishid qofki xumaan social media soo galiyo Soomaali maxamed ma matalo magaca Soomaali markii lagu dhahayo shanta markii laga hadlayo waxaana matali kara qof calanka dadka diinta iyo dawladda bay ka amaan heli karto ma aan qof walba intuu meesha iska soo fariisto aso freeze abo dadka qaar freeze barada dadka qaar baxal intaas leegintay zib ka soo siiyay cagna aniga diinta qaati billah ka taagay community aniga xaq iyo xuquuq imasiyan dhamaantiina waa in salaamaya kaasi wuxuu ahaa dadka diinta ka baxo iyo dadka sheekooyinka aan ka suubiyay fadlan subscribe iyo share anaga ilaahay ka sugeynaa barada ilaahay
aan ka sugayna haddii aad gacantaada ku jirtana adi iyo shakhsiyadaada abo waa la kala laandheeraysan yahay meesha